madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Florentino Perez ayaa shaaca ka qaadaya in aysan jiri doonin koox ku soo dhiiran doonta hamiga ku aadan xidiga Isco oo ka tirsan ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Real Madrid. kalsooni weyn ayaan ku qabaa in Isco aysan jiri doonin koox kamid ah kooxaha ka dhisan horyaalka Ingiriiska oo si awood ah markaa isku soo diyaarin karta inay laacibkaasi kala wareegaan kooxda Real Madrid. madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Florentino Perez waxa uu leeyahay 26 jirkaan si fudud kagama bixi doono kooxda kubadda cagta Real Madrid wax walba ay sameeyaan kooxahan sida gaarka u xiiseynaya waxaana laacibkan Isco aad loola xiriirinaya Tottenham, Manchester City iyo kooxda kubadda cagta Chelsea. toddobaadkii ugu dambeeyay afar ciyaartooy ka tirsan kooxda kubadda cagta Real Madrid waxa dalabyo kala duwan ka soo gaaray kooxaha ka dhisan horyaalka Ingiriiska. haddaba laacibkan Isco ee ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa heshiiskiisa markaa lagu xiray lacag aad u fara badan aysan u dhawaan doonin Tottenham, Manchester City iyo Chelsea. waana adduun lacageed gaaraya 700 milyan oo lacagta Euro-ga oo dollar ahaan u dhiganta 796 milyan oo lacagta dollarka Mareykanka. waa lacag aad u sareysa aysan markaa bixin karin kooxahani maadaama ciidaankaasi lagu xiray heshiiskiisa in lagu burburin karo lacagahaasi. waxaana tobraha kooxda kubadda cagta Real Madrid oo kalsooni weyn ku qaba go'aankii ay gaareen madaxda sare ee kooxda kubadda cagta Real Madrid oo ay ku adkeeyeen albaabadooda ciyaartoyda ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta Real Madrid. kooxda AC Milan ee ka tirsan horyaalka waddankaasi Talyaaniga ayaa si gaar ah u xiiseynaysa xidiga Dani Suarez ee ka tirsan kooxda kubadda cagta Barcelona maadaama laacibkani la sheegay in uu isaga soo dhaqaaqi doono Sadio Camno ee kooxdaasi. kooxdan ka dhisan horyaalka waddanka Talyaaniga AC Milan waxay diyaar u tahay in ciidaankaasi wada xaajood ay la gasho maamulka sare kooxda kubadda cagta Barca si ay ugu soo fudaato xidigani qadka dhexe kooxda kubadda cagta Barcelona ee Dani Suarez. waa laacib joker ah oo si weyn kaga dhex muuqanaya markii uu ku guda jiro garoonka waxaana arintaasi xoojinaya tobraha kooxda kubadda cagta AC Milan oo kalsooni weyn ku qaba inay sanadka cusub Milan ay heli karto hadii ay xoojiso dalabka ciidaankaasi. heshiiska Barcelona uu kula joogo ciidaankaasi ayaa wax uu kaga eegyahay bishii lixaad ee sanadka 2020. xidiga Dani Suarez waxa sidoo kale dalabyo ka soo gaaraya kooxaha ka dhisan horyaalka waddankaasi Ingiriiska. dhinaca kalena kooxda Bianconeri Juventus ayaa wali waxay ka samri laadahay dalabkeedii ku cadanaa wariyaanka kooxda kubadda cagta Fiorentina ee Federico Chiesa. ciidaankan 22 jirka ayaa waxa uu suuq wacan ku yeelanaya kooxaha ka dhisan horyaalka waddankaasi Talyaaniga maadaama Fiorentina ay qorsheynayso in ciidaankaasi iska fasaxdo waxa ay ku xujeeyeen lacag aad u fara badan inay bixiyaan kooxaha dalabyada ka soo gudbinaya siwa Chelsea iyo Liverpool oo si gaar ah u xiisanaya xidigan ee Chiesa ayaana Fiorentina waxa ay sheegtay inay ciidaankaasi ay ku iibin karto adduun lacageed gaaraya 70 milyan oo lacagta Euro-ga oo dollar ahaan u dhiganta 79 milyan oo lacagta dollarka. xidigan ayaana la aaminsan yahay in ay dhici karto inuu baaqi ku sii noqdo horyaalka waddanka Talyaaniga gaar ahaan haddii Juventus ay bixiso 70 milyan ay kooxda Fiorentina ku doonayso in xidigaasi Federico Chiesa marka ay kaga soo iibsato Fiorentina ama waxa laga warsugi doonaa go'aanka ay gaari doonaan labada kooxood ee ka dhisan Premier League Chelsea iyo Liverpool oo si gaar ah u xiiseynaya laacibkani Federico Chiesa.